بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحاب مeel kastoo aad joogtiin soo dhawaada janalka Faizes World meel kastoo adduunka aad ka joogtiin waxaa idin leeyahay nabad iyo caafimaad iyo farxad ku jooga insha Allah soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah maanta waxaan noo sameynayaa laba cabitaan oo maasha Allah labadoodaba kala daran caafimaadka aad iyo aad ugu fiican fitamiinaad badan leh oo u fiican dhiig la'aanta oo dhiigga soo celinayaan energy ku siinayaan oo energy leh waxay kale u fiican yihiin lafaha waxa way cabitaano oo lafaha dhisaayo waaye sidoo kale maskaxda yar iyo weyn ay cabi karaan maasha Allah aad iyo aadna u macaan oo dhamaantiin aad wada heli doontiin soo dhawaada asxaabteeda qaaliga ah videoga like dhaha share gareyn asxaabtiin u share gareeya aad iyo aad aan kaga mahad celinaya haddii aanu cusub tahay marka ugu horeysa aan soo boqotan oo kusoo dhaweynaya fadlan channelka subscribe ka taabo gambaleelka furo si videoyaasha cusub aan soo gelino si toos ay kugu soo dhacaan aad iyo aad aan ugu wada mahadsantiin dhammaantiin soo dhawaada marka walaalahay qaaliga ah marka hore waxaan sameynayaa cabitaan aan ka sameynayo timir cabitaanka timirta marka hore aan ku bilaabaneynaa baaqul yar waxa igu jiro 7 xabo oo timir ah waxa kale oo isticmaalana zanjabiil oo wax yar aan ka isticmaalayno ilmaha marka la siinaayna waxa waaye zanjabiilku waa laga reebayaa laakiin markii dadka waaweyn ay cabayaan zanjabiilka maasha Allah aad u macaaneyna wax yar lagu darsanaa waxa kale oo baaqulgan yar igu jiro qorfo shiidan oo asna wax yar aan ka isticmaalayno waxa kale meeshan ku haysanaa waraango ama nasha ama corn flour waraangada idan waxaan ka isticmaalaynaa 2 qaado gasacana ay tusnayna asxaabta waxa waaye kastar waaye laakiin kastar ma aha waxaan isticmaalayno ama mahlabiyada waaye gasaceeda waaye waa ku soo qaldamay waxaan rabaa saxanka inaan soo saaro gasaca oo nashada ama waraangada labada cabitaan waxaan u isticmaalaynaa waraanga u isticmaalaynaa ama nashada u isticmaalaynaa waxa kale oo cabitaankeena u isticmaalaynaa heel iyo vanilla sidoo kale sokorna ku darsanayna sokorta laakiin sama ka badinayna maadaama timir aan isticmaalayno waxaan isticmaalaynaa bis hal qaado oo sokor ah marka hore waxaan sameeyaa asxaabta timirta lafaha aan ka soo bixiyay haddana waa shiidayaa makiinadaan ku shiidayaa caana marka aan kula shiidayaa timirta marka hore si fiican u shiidayaa timirta markay si fiican u shiidanto kadib markaas cabitaankeena aan ku darsanayna aan sameysanaynaa marka hore laakiin timirtaan shiidayaa cabitaan waxa way maasha Allah fitamiinaad badan leh oo dhiigga soo celinaysa yani gabdhaha oo dhiig la'aanta ay hayso kale sidoo kale ilmaha aad iyo aad u saacidayo oo dhiigga soo celinaysa sidoo kale energy aan keenayna cabitaankan lafaha u fiican yahay maskaxda u fiican yahay maasha Allah siiba ilmaha soo koray marka la siiyo maasha Allah lafaha iyo maskaxda waa ka saacidaya marka hore dabka waxaan soo saarneynaa caanaha 3 bakeeri oo caano ah waxa kale aan ku soo darayaa timirtii oo caanaha aan ku soo shiiday waxa kale ku soo darayaa 2 qaado oo waraange ah ama nasha ama corn flour waxa way waraangada magacyo badan ay leedahay gabdhahana badan way soo weydiiyaan علشان ساسا waxaa magacyadeeda dhan aadin kugu sheegayo haddana si fiican u qasaaya si fiican u walaaqaya si oo waraangada hoos ay nooga qabsan waraangada hadii lagu daro laazim waxa waa in la walaaqo walaaqitaanka aan laga joojin waxa kale ku soo daraya hal qaado oo sokor ah sokorta hadii aad iska dhaaf kartaa la inuu timiran ku darsanay timirtan waxa way macaan waaye laakiin hadii aad tahay dadka macaanka jecel hal qaado sokor ku darso waxaan kala ku soo darsanayna qorfo shiidan qaadada yarta nuskeeda oo qorfo shiidan ah waxa kale ugu dambeeya ku soo darsanayna sanjabiil oo qaadada afkeeda hore ah sanjabiil shiidan iyo heel shiidan vanilla oo ikhtiyaari ah vanillada waxa asxaabta ana jecel hadii vanilla aan rabina waa iska dhaaf kartiin waa kareebi kartiin intaas markaas ku karsanayna dab gaaban aan ku karinayna walaaqitaankana ma laga joojinayo la in waraangan ku darsanay waraangadan waxa hoos ku dhigaysa laazim in la walaaqo walaaqitaanka loo badiyo adoo waxay noo saarnaanaysaa ilaa 10 daqiiqo caanaha markii ay soo karaan waxa way cabitaankeena diyaar waaye dabka waa ka dibinayna markaas insha Allah بس واحد أنا أصحابتي عبتين كنا سانو ديار نوجيهاي خلاص وعمر كان ديار ونويهاي بكيرياش أنا صار ديار سنة وكشوفنا هنا
maasha allah wuxuu noogu soo baxay cabitaan sidii smoothiga camal oo culus oo maasha allah aad iyo aad u qurux badan caraftiisana maasha allah waa yaabaysaa iyo macaankiisa marka waxaa idin asxaabta in soo tijaabiya insha allah aad iyo aad idin anfici doona aad uga heli doontiin haddana waxaan korka ugu soo shubayaa oo kusoo qurxinayaa fustaq oo shiidan waxawaaye loos shiidan marka idinka waxaa rabtiin ku darsan kartiin ku quruxsan kartiin ay loos haysatiin ama xataa buskut shiidan korka ugu shubanaysiin haddana waxaanu sameynayaa cabitaankeena labaad cabitaan aad u fudud aadna u faa'iido badan oo caafimaadka aad ugu fiican marka hore jalmada waxaan kusoo shubanayaa 2 bakeeri oo caano ah caanaha isticmaalayna waxa waaye caanaha caadiga ah caanaha lo'da waxaa kaloo kusoo shubayaa 2 qaado oo sokor ah علشان هالكي بكيري وعانة إيه وحواي هالقادة أو سكر مركا لبد بكيري لبا قادة أو سكر أو استعمالها ينقصو الشبايا وحاك لو قصو درايا لبا قادة أو ورانجة إيه أما نشا أما كون فلاور ورانجة مركا لو قدرنا وحال رباين إسلا مركا لو ولاقو علشان ورانجة وحواي هوسي كو لغيسا إن إسلا مركا سهوري أكا ولاقو دواي وحاك لو قصو درسلنا هيل شيدن إيفانيلا لو اختياري إيه waxaa kaloo ku darayaa hal qaad weyn oo xabarshaad ah xabarshaadkan waa kana asxaabta wuxuu noo qasnay in hal saac meelaha soo noo qasnay hal qaadan waa waxaan qasay biiraan ku qasay markii la qasasaan u badanaya ma sha Allah waxaan ka isticmaalayaa hadda markii in hal qaadan ka isticmaalayaa oo weyn marka hadda waxaan sameynayaa dabka u gaabinayaa dab gaaban oo noogu karaaya wax yar aad oo noogu karaaya كبعدين إن شاء الله وحواي عبيتان كان ديار ونقناه إن شاء الله حبرشات أما شنفحدة إن فائدة صدقين شيء أصحابته وحواي دمر خاصة هرت آدي وقف عينها وحواي إن حق قرحين يحق عافمات بوقف عينها وحوق في عينها أو داوي هاي قبلها عادة وحنون صدان إيو قبلها أو عادة كغلطنت هاي داوي هاي sidoo kale wuxuu aad ugu fiican yahay in maamooyinka markii ay dhalaan oo kale waa u fiican yahay ma sha Allah tabarakallah waxa waaye in carabta waxay dhahaan xabrashaadkan ama shanfaxda carabta waxay dhahaan saydaliya kaamil yani farmashiya kaamil ah waaye macnaheedu waxa waaye daawo mutakaamil ah waaye rasuulkeenan hore noogu sheegay rasuulkeena cuni jiray dhahaan carabta yani nimankan waa cuni karaan naagahana waa cunaan waliba qaasatan naagaha aad iyo aad ugu fiican yahay in gabdhaha iyagoo yaryar caadada ay ka tagto caadada qaldan sida hore usoo sheegabo يعني وحواي إن داو متكامل إيه أصحابته قرحين وفي عينها ولا سكو قرحية ماسكة على قدرتها تمها جيرك سيدو كله واللي بتمها وحوسي في عينها تمها مركي أي جوآيان تمها جوآن وحواي جوتان كآد وداو وياهي واستاجنا يا مركز توصل واستعماش تمها جوآي حتى واستاجنا يعني آد وياهي داو ما شاء الله تبارك الله وحواي فائدة سوح لسوكو بكرمها أصحابته لكن وحعنون كرين إن قبلها قبان تايروتك فيديو هورن ساس idinku soo sheegay marka gabdho badan oo waxa jiraan thyroid maxaa la dhahay isoo qoreen thyroidka waxa waaye English way asxaabta Arabi waxa lagu dhahaa in qudda af Soomaalian waxa u maleynaa inuu yahay buro laakiin se buro ma ahan waxa waaye wax oo yani hormonaadka oo la shaqeeyo waaye buro ma la dhihi karo jiradaas marka waxa la dhahaa in thyroid qofka marka yani oo thyroidka qabo ma cabi karo sidoo kale gabadha oo xaamilka ah iyadana ma cabi karto labada sitood aan cabi karin laakiin inta kale waa la wada cabi karaa xataa ilmaha waa la siiyaa ilmaha ma sha Allah lafahooda ugu dhismaayo sidoo kale ilkaha waxa waaye ilmaha weyn ku cayilayaan ma sha Allah tabarakallah haddana waa kana asxaabta markii oo cabitaankeena oo noo soo bislaaday oo dabka aan ka soo daminay ma sha Allah sidaan noogu soo baxay bakeeriyaashan intaan soo diyaarsan ku shubanaynaa وكسو بحي إن عبيتان أو وحير علوس وكالس كأرجو ما شاء الله آد ومعان آد نوع عرف بدن عبيتان كان يتود كلال كان كعبينا كلال كان لجو عباء وحوي عبيتان عرف يمعان اسكو درسدو ما شاء الله كالس كأرجه مركون حيدنا أصحابتك فايدة إن شاء الله إن المهنة ولا السكرة سدو كلا نمن كانوا عبي كران يعني وحوي عبيتان لو ذا عبي كرو وما شاء الله إيه عافماتك آدي آد وفيعا مركون حيدنا فايدة إن شاء الله هذه أذن مهتسنتين وحرجينا يا فيديو إن اللايك أنو سارتين أو لايك أنو بدسين إن شاء الله لايك هاي المامنة شير نقولها قبلها أصحابتينا إن شاء الله وحنا بلن فيديو قدام به وحنا إنك تجايا خير بدن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.